رئيس وزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن حسن علي قيره مهد عود اللي معنا قدوميها قبل كبنادر عمر فينش يكحوجي نديسة وزير حكومة الفدرالية الصومالية قدوميها قدق دورشوين كحليم يري وحنكو سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا فرحدي إن المانتي إذن كلا سو قيب قالو كلن مهم كاه لو حسيا مالينتا هaweenka Soomaaliyeed adduunka gaar ahaan doorka muuqda ee haweenka Soomaaliyeed ay ka geystaan dowlad dhisidda dalkeena sanad ka hor markii aan shirkaan oo kale iskugu nimid waxaan is xasuusinay ahmiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo midnimada haweenka Soomaaliyeed sidii aan uga daba tagi lahayn dalalkana dhaafe oo ay iyo kuwa gobolkaba waxaa la taaban karana inaan la ka qabano daryeelka hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxaa alla mahadi in ay hay'adda sayna macallin oo dhisan muddo ka siman sanad iyo bar inay bilowday hirgelinta xarumo caafimaad oo lagu daryeelayo hooyada iyo dhallaanka oo kii ugu horeeyay aan ka soo dhagax dhigay aniga iyo walaalkay madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen magaalada taariikhiga ah ee Baraawo waxaa sidoo kale ii qorshaysan usbuucida soo socdo inaan sidoo kale soo dhagax dhigo xarumo kale oo ku yaala meelaha ugu baahida badan dalka ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dadka ugu adkaysiga badan dunida maadaama ay la soo kacakufeen dhibaatooyin badan colaado gaajo iyo fatahaad iskugu jira musiibadii ugu dambeysay waa tii ku habsatay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan magaalada Bardaale iyo sidoo kale Baardheere adkaysiga aad maqasheen marka laga hadlayo ma ah rag Soomaaliyeed ee waa hooyooyinka duruufaha adag ka soo gudbay ma aha odayaasha ee waa haweenka u istaagay inay ku koriyaan ubadkooda saboolnimo iyo agoonnimo ma aha wiilasha ee waa gabdhaha yaryar oo ka soo badbaaday kufsiga gudniinka fircooniga ah iyo daryeelka xumada ay la kulmaan xilliga uurka iyo dhalidda gabdhaha Soomaaliyeed ma jirto maalin ay ka aqoon badan yihiin kana waaye aragsan yihiin kana dhiifoon yihiin maadaama haatan nalagu tilmaamo inaan nahay dalka ugu liita dhinacyada umal raaca dhimashada carruurta ka yar 5 sano waa inaan khibrad waaye aragnimo iyo dhaqaalaha aan maanta hayan hooyooyinka Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan sidii loo horumarin lahaa arrimahan marka laga soo tago dhismaha iyo dhagax dhiga xarumaha caafimaad oo hooyooyinka iyo dhallaanka loogu talagalay waxaan dabayaaqadii sanadkan hore aniga oo kaashanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika iyo culimada sharafta leh u istaagnay inaan gacan ka geysano dadkii ay dhibaatada ka soo gaareen fatahaada waxaana laba magaalo oo aan tagay eeba nagu guulay inaan ururino lacag ku dhow $100,000 oo dollar oo si toos ah loogu wareejiyay gudiyada hawshan waday taas waxay tilmaam u tahay in wali damiirka dadka Soomaaliyeed nool yahay iyo iskaashiga uu yahay sida kaliya ee aan ku xallin karno culaysyada naga gudbo waxaan u guntaday inaan wax ka qabto intii karaankayga ah sidii loo yareyn lahaa culaysyada haysta gabdhaha Soomaaliyeed aniga oo la kaashanaya hay'ado caalami ah iyo saaxiibo dhigayga ah oo aan dhowr jeer safar ugu tagay sidii howlaha qorshaysan loo dhaqaajin lahaa marwo ahaan ma ii hooyo dan shakhsi ah wadata waxaan ahay hooyo ku howlan kaliya ka shaqaynta dhibaatooyinka afeeyay hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed jecelna in meesha laga saaro dhibaatada guud ee dalkeena haysata waxaan rabaa in aan sii wado dadaalkaygaas oo aan u arko guusha himiladeena waxaan rajaynayaa in aan sii wado shaqada garab igu siisaan iskana kaashano mar weyn aan mudanayaa halganka haweenka Soomaaliyeed wuxuu soo tixnaa muddo dheer wuxuuna soo maray heerar kala duwan halkan gobonimo doonka waxaa jira hooyooyin laf dhabar u ahaa oo aan ku xusi karo Xaawo Cismaan Taako iyo Timir Cukaash
waxaa jira kuwa haatan ah tusaale nool oo aan ku faani karno dadaalkooda iyo kaalinta ay ka geysteen dhismaha isbitaallo xarumo daryeel ilaalinta deegaanka ka qaybgalka nabadda iyo dhisidda dalkooda sida Dr. Xaawo Cabdi Dr. Edna Aadan Dr. Istarliin Cabdi Caruush Shukri Xaaji Bandar Saada Cali Warsame Faadumo Jibriil Dr. Maryam Qaasim Marwa Caashe Geelle Diiriye Caashe Xaaji Cilmo iyo walaashay Fartuun Cabdisalaan oo odageedii marxuum Elman iyo gabadheedii Almas ku weyday u qidmaynta dalka iyo dadka waxa aan la hilmaami karin haweenka waqtigooda tacabkooda dadaalkooda geliyay daryeelka korinta waxbarista agoomaha Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay dadaalkiina qiimaha badan guuleysta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka walaashay Deeqa Yaasiin Xaaji waan uga mahad celinayaa sida ay had iyo jeer ugu ololeyso xuquuqda haweenka inta aan dhamayn hadalkayga waxaan rabaa inaan si wada jir ah ugu duceyno abwaankayna weynaa ee Maxamed Ibraahim Warsame Xadraawi oo suugaanta uu ka tiriyay hooyada aysan jirin wax la barbar dhigo marmar badan ayaan dhageystaa abwaan Xadraawi aan faatixada u marno in Ilaahay caafiyo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkaan ka bogaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed har iyo habeen dadaalka ugu jira ilaalinta xuquuqda haweenka iyo guud ahaan tan aadanaha daryeelka hooyooyinka iyo carruurta iyo kobcinta agoonta gabdhaha Soomaaliyeed guul gobonimo